subscribe, like, share, comment. Gambalalka dhaysi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mar labaad kulanti wacan oo wanaagsan. Halka aan naga daawanaysaan waa Somteach online. Page-keena Facebook aan ku leenahay waa Somteach online. Sidoo kale YouTube-keena waa Somteach online. Website-keena waa somteach.com. hore waxaan u soo qaadanay ashara kala duwan oo ku saabsan buugga 12aad ee fasalka form 4 qaybo badan aan soo qaadanay compound aan soo qaadanay double angle aan soo qaadanay half angle aan soo qaadanay waxaan soo qaadanay sum and product and sum aan soo qaadanay maantana waxaan joognaa inaan idin soo gudbino trigonometric equation qaybta quadratic ah ayaan rabnaa halkan inaan idinkaga soo gudbino wixii comments ah ama faala ah waxaan noogu dhaafaysan hoos aan noogu dhaafaysan ardayga walaalkaaga ahna hadii aad fiirsatid oo maxaan ku ilaahay nasiib oo ku siiyay inaad ka mid noqoto dadka ku taxan Somteach online walaalkaagana u sheeg la share garee gaarsii qof walba oo daawado ama fiirsado waxaan ka codsanaynaa inuu share gareeyo si micnaha wanaaga adiga aad fiirsanayso ardayga walaalkaaga asigana oo kugu la qayb qaato barnaamijka oo kula dhageysto wax xunba waa la faafiyaa Soomaalida aad bay u jecel yihiin wax xun inay faafiyaan waxa khayrka ah ardadana looga faa'iideynayo inaa faafiso aad bay ku anfacaysaa adna ajra ka helaysaa annagana ajra noogu socdo marka waxaan ku leenahay wixii comments ah hoos noogu dhaaf subscribe kana iska saar si uusan ashar ku dhaafin walaalkaaga saaxiibka ama walaashaada oo guriga kula joogtana gaarsii wixii khayrka awaalis gaarsiya haddana waxaan galeynaa si toos aan u galeynaa casharkeena ahaa solving quadratic trigonometric equation ayaan toos u galeynaa solving quadratic trigonometric equations waxaan qaadanaynaa maanta qaabkii loo xalin lahaa isla egyada saabka ah khaasatan ka sii ah trigonometry annaga waxaan soo aragnay markaan ahayn form 2ga waxaan soo aragnay quadratic equation aan soo aragnay laakiin wuxuu ahaa iyagoo polynomial ahaa tibxaalayaal ah maanta laakiin waxaan arkaynaa ayadoo trigonometric ah ayaan arkaynaa waxaa yidhi when you have a trigonometric equation in the form of a quadratic markaa haysatid isla exab taasoo ah cabirka saddexagal qaabka ay u qoran tahay ay tahay quadratic saab ay u qoran tahay you must first factorize marka ugu horeyso waa furfuraysa the equation isla egta you will often end up with more than two answers waxaad helaysaa waxa ku soo baxayso laba jawaabood wax ka badan ayaa mar walba ku soo baxayso laba jawaabood wax ka badan ayaa ku soo baxayso wixii laga wada example ka ayaan ku harki doonaa haduu Ilaahay nafta noogu simo to solve these types of equation you will need to factorize the equation si aad u xaliso nooca isla egtaan waxa u baahan tahay inaad furfurto isla egta ayaad u baahan tahay inaad furfurto macnaha furfurto markii la leeyahay hadda ka hor markaan marayay quadratic equation oo form 2yada waxa ku aragteen markii isla eg lagu siiyo oo quadratic ah marka ugu horeyso waa la furfurayaa oo waxa la dhigi jiray laba tir marka la isku dhufto intaas ku siinayso marka la isku daro ama la kala gooyo intaas ku siinayso ayaan sheegi jirnay ama aan raadi jirnay qaabka noocaas oo kale ay iidan u shaqeynaysaa waxaa jirta general method to solve trigonometric equation hab guud oo loo xaliyo isla egta saab oo ah isla egtaas oo ah cabirka saddexagal waxaa yiri put all terms into one side of the equations waxaa yiri tibixyaasha dhan hal meel isugu geey isla eg tibixyaasha dhan hal meel isugu geey maxaa laga wadaa warkaas iidan example ka ayaan ku fasiri doonaa marka hal meel isugu geeysid kadib add like terms wixii isku tibix ah isku dar waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu leeyahay rearrange into a form that can be factorized waa habeynaysaa ama waa qaabeynaysaa waxaan u qaabeynaysaa si ay u furfurmayso si loo furfuri karo ayaa u qaabeynaysaa if needed haddii loo baahan yahay haddii qaabaysan tahay macnaha ha taabanin haddii laakiin aysan qaabaysnayn aysan habaysnayn ay isku dhex yaacsan tahay waxaa laga rabaa inaad habaysid oo qaabaysid marka qaabeynta iyo habeynta waxaa laga wadaa ama waxaa u qoraysaa ascending ama waxaa u qoraysaa descending ama korudaadig ama hoosudaadig remember you may have to use the double angle formulas xasuusna walwiir waxaa isticmaalaysaa double angle formulas factorize the equation isla egta furfur waxaan dhan example kan ku sharxi doonaa solve the two resulting equations waxaa la yiri labada isla eg xali ayadana wax laga wada example ka idinku tusi doonaa mid ay tusi doonaa marka xalis ensuring you have the correct number of answer within the range waa inaa hubsataa loo yiri jawaabta saxda ah inay haysatid adigoo ranjiga aadan ka gudbaynin it means meesha ugu hooseysa ee lagu qabtay iyo meesha ugu sareyso ee aad joogtada waxa loo yaqaan range intaas ma ka dhex bixi kartid marka waxaan
luqadan Englishka ay ku qoran tahay waxaan rabnaa in practice inaan gelino erey walba meeshan ku yaalo si macnaha fasraadooda aan idinku fasiro waayo hadda fasraada da idin fasiro ma fahmaysaa laakiin example markaan ku xalinayno automatically waa la fahmaa marka example 1 aan galno marka waxaan solve the following equation isleegtan soo socoto xali 4 cos x square minus 3 cos x minus 1 equals 0 waxaan x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay 0 waxay ka yar tahay ama la eg tahay 360 degree answerka laga rabana waa kuwan waa afar answer meesha aan ugu taalo waxaa laga rabaa jawaabta inay soo baxdo eber waxaa laga rabaa 360 waxaa laga rabaa 104.5 sidoo kale waxaa laga rabaa 255.5 afartan jawaabood aan rabaa inaan soo saaro ilaa hadaada waxaan leeyahay more than 2 answers laga rabaa in ka badan 2 jawaabood ayaa laga rabaa marka sida hadda noogu muuqatana afar jawaabood meesha noo taalo bal example kan aan xalino simcnaha ee jawaabahan ay noogu soo baxaan example 1 ayaan ka bilaabaynaa oo waxaan ku jirnaa trigonometry aan ku jirnaa equation kan ku jirnaa wali waxaan kaga jirnaa quadratic iyagoo aan ku jirnaa marka example 1 aan xalineynaa example 1 meesha sida noogu qoran waxaa la yiri 4 cos x square minus 3 cos x okay minus 1 equal to 0 waxaa kaloo la yiri x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay 0 degree waxay ka yar tahay ama la eg tahay 360 degree waan xalineynaa isleegtan waa quadratic sida u jeedaan maadaama quadratic ay tahay waan xalisanaynaa waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaanaa AC method loo yaqaanaa habkan waxa loo yaqaanaa AC method ayaa loo yaqaanaa waxaan sameynaynaa afartan meeshan taalo iyo waxaan isku dhufanaynaa halkaan isku dhufanaynaa afartii waxaan isku dhufanaynaa halka ayaan isku dhufanaynaa waxa soo baxaayo afar soo baxaayo marka waxaan sameynaynaa waxaan leenahay laba tiro oo la isku dhuftay oo ku siinayso afar ayaa loo baahan yahay laba tiro oo markii la isku dhufto ku siinayso afar waxa kamid ah 2 iyo 2 koo laba lagu dhuftay 2 waxa kale kamid ah 4 iyo 1 intaasba marka isku dhufto waxay keenayaan 4 ay keenayaan laakiin labadaan tiro keebaan qaadanaynaa waxaan xukumayaa qadkan dhexe si fiican u fiiri qadkan dhexe labadaan marka isku darno ama kala gooyno saddex mana siinay waa maya haddaan isku darno waxay keenay 4 haddaan kala gooynana waxay keenaysaa eber marka tan anaga waa iska dhaafeena oo mar rabno waan cancel gareynaa waa iska tireena labada marka isku dhufano waxay keenaysaa 4 waa sax haddaan kala jarnana waxay keenaysaa saddexda aan u baahanahay oo tan ah wayna siinaysaa marka waxaan sameynaynaa marka maadaama 4 iyo 1 aan qaadanayno numberka calaamada inta taala fiirinaysa haday balaas tahay tan weyn balaas si haday minus tahay tan weyn minus si maadaama afarta ay weyn tahay minus aan siinayna tan waxaan siinayna balaas laakiin waxaan raacinayna mid walba waxaan raacinayna kan cos aan raacinayna balaas 1 kin waxaan raacinayna cos aan raacinayna cos x aan kala raacinayna ilan waxa la yiraahdaa the trinomial saddex tabixlu is changed waa la bedelaa to a tetranomial laga dhigayaa afar tabixla laga dhigayaa by splitting iyadoo la baabi'inayo the middle term qad ka dhex and then it is factorized kadib waxa lagu furfurayaa by grouping kooxayn marka hadda maadaama ay saddex tabix tahay waxaan ka dhigaynaa afar tabix aan ka dhigaynaa maadaama 4 iyo 1 aan qaadanay booska marka saddex booskana by splitting the middle term qad ka dhex la baabi'inayaa سيوم بابينينا وحن لنا 4 cos x oo la isku weergareeyay waxaan gelinayna meesha minus 4 cos x ilaa hadaydan qoranay plus cos x minus 1 equal to 0 halkan fiiri meeshaan kan bisa baxay kan wuu yaalaa waa kana 4 cos x square gas wuu yaalaa minus 1 kan wuu yaalaa qadkan dhexe waxa lagu bedeshtay booskeeda 4 minus 4 cos x iyo plus cos ilaa hadii labadan la kala jaro hadaba waxay ku noqonaysaa minus 3 cos x ay ku noqonaysaa okay waxaan sameeynaa marka maadaama afar tabix ay noqotay and then it is factorized by grouping kooxayn waa kooxaynayna labadan waa isku group labadan gooniya common factor ka bixinayna labadan gooniya common factor u bixinayna oo maxaan sameeynaa numberka inta ku jiro waa 4 xarafka inta ku jiro waa cos x markaan bixino 4 waa isu bixin waa isu qaybinay waa 1 cos x square gareysan waxa soo haray cos x minus 4 cos x divided by 4 cos x waa 1 plus
calaamadaana mar dejinay hadii balasta waa dejinay hadii minus waa dejinay wax common factor waa 1 labadooda wax ka dhaxay waa 1 cos x leh minus 1 equal to 0 labadan fiiri bracket waa isku egi mar walba saas laga rabaa inay isku ekaadaan midaan tireena marka labadan midaan iska baabi'inayna okay waxaan leenahay marka kan soo qaad cos x minus 1 soo deji kan kala bracket geli kan ilaa inta bracket isla geli oo maxaa leedahay 4 cos x plus 1 equal to 0 marka hadaayad waxa lagu yiri the two equations ka wala xalinaya hadaan dib idinku celiyo English meesha ku qornaa waxay ahayd labadii isla eg baxali waan xalinayna oo seen u xalinayna midkan 0 la ekeysiinayna midkan 0 la ekeysiinayna oo waxaan leenahay halkan fiiri cos x minus 1 equal 0 comma 4 cos x plus 1 equal 0 labada equation waa kuwan kana waa equation labada dhinac waa xalinayna waxaan leenahay cos x equal to waa wareejinayna 1 ka minus wata waa wareejinayna 1 way oo plus ah 4 cos x 1 kan asagana waa wareejinayna plus wata minus u tagaya x dhe marka la rabo in la wareejiyo cos kan xag loo wareejiyo waxa la isticmaalaa cos inverse 1 aa leedahay cos inverse 1 qaybtan kale waxay noqonaysaa iyadana inta waxaan u qaybinaynaa 4 inta waxaan u qaybinaynaa 4 tan say u baxdo inta waxa ku soo haray cos x equal minus 1 over 4 wili sii soco kan deji x equal leh cos inverse 1 dheh kan waxa leedahay marka x equal leh cos inverse minus 1 over 4 inta markay marayso waxa sameynaysiin calculator ka soo qaadanaysiin shaqadan waxa iska leh calculator iska leh ugu horeen calculator ka daaranaysa waxa sameynaysa shift ayaa taabanaysa shift marka taabatid ayaa waxa taabanaysa hadana cos taabanaysa isaga soo qormay cos inverse soo qoray calculator kadib waxa taabanaysa 1 jawaabta oo equal ah dhehaysa marka waxa soo baxay marka calculator waxa ku soo baxay marka 0 waxaad qoraysaa marka jawaabta qorayso waxay noqonaysaa marka intaan waxa ka soo baxay markii calculator ay gelisay x equal leedahay 0 degree waa qoraysaa inta imaw marka hadana halkaan imaw hadana calculator ka furaysaa shift ya taabanaysaa cos taabanaysaa bila furaysaa minus 1 taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay a/b/c ayaa taabanaysaa 4 taabanay bish waa xiraysaa kadib equal taabanay jawaabtu waxa ku soo baxay waxay tahay 104.4 soo baxaysa laakiin buuxi 104.5 ka dhig marka waa buuxinayna ilaan waxa soo baxayo 104.4 wax noocan soo baxay marka todobadan hal laga soo qaada inta lagu buuxinaa waxa la leeyahay 104.5 degree inta markay noo marayso marka halkaana dib idinku celinaa meeshan muhiim waa meeshan iska fiir labadan jawaabood waxa soo saar waa calculator ada waxa laga rabaa more than 2 answers ina soo bixiso wax ka badan laba jawaabood inay ku soo baxdaa la rabaa halkaana fiirinaysa halkaan fiiri waxa lagu yiri x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay mar haday ku jirto jawaabteedu waatana waa soo baxdo waa qaadaysa taas sidoo kale waxaan soo qaadaynaa 360 aan soo qaadaynaa ilaan maadaama la eg ay ku jirto ayadana waa soo qaadaynaa waa intaan dhigaynaa see u dhigaynaa marka horta waxaan baroobaynaynaa waxaan sameeynaynaa cos 360 aan gelinaynaa waa inay soo saartaa halka ay soo saarayso waa kana this one halkan waa inay soo saartaa si fiican isaga ilaaliya halkan oo balaaska ah inay soo saartaa la rabaa calculator-ka furaysa cos bis taabanaysa shift wax ma taabanaysa cos taabanaysa 360 aan gelinay kadib equal dhahe hal ma soo saartaa waa u baahanahay marka waxa leedahay 360 ayadana waa qaadanayna waa jawaab kale meeshan imaam marka meeshan waa ka dhamaad marka jawaabihiisa meeshan imaam marka meeshan qiimo ku yaala 104.5 qiimahan meeshan ku yaala wax kala ha sameeynin adig meeshan maxaa ku yaala 360 soo kuma taalo waxa sameeynaysaa 360 ka inta soo qaadid 360 calculator-ka inta gelisid waxa ka gooysaa qiimahan ka gooy 104.5 ka gooy 104.5 ka gooy imisa soo hareys waxa soo baxay marka jawaabta soo baxaysa waxay noqonaysaa markii la kala jaro waxa soo baxayo 255.5 degree laakiin inaan qaadanayna in kale waa iska hubinaynaa waxaan sameynaynaa jawaabtan noo soo baxday waxaan sameynaynaa waa hubinaynaa waxaan sameynaynaa calculator-ka fur cos taabo
cos markaa taabatid 255.5 agelinay kadib equal adee waa inay ku soo baxdaa tiradan oo minusna ah waa inay ku soo baxdaa waxa laga yaabaa calculatorka inuu ku soo saaro -0.250 wax saas adartid inaad jajab ka dhigatid waxa taabanaysa AB/C meesha ku taala taabanaysa AB shift AB/C taabanaysa sorry waxa sameynaysa tiradan inta soo qaadid ayaa waxa ka goynaysa 360 oo maxaa dhahay 360 laga jaray 104.5 ayaa ka goynaysa waxa soo baxay 255.5 jawaabta laga raba isla marka cos taabo inay ku soo baxaysa fiiri ha waa soo baxaysa 0.25 tan waa soo baxay ileen 1 hal loos dhig 4 waxay u dhigantaa 0.25 oo ah negative ay u dhigantaa ileen kan minus saaran hadeeba marba ku soo baxdo jawaabtan waa qaadanaysa marka afarta jawaabood ee laga rabay waa kuwan marka midna waa tana waa 0 degree tanna 360 degree tanna 104.5 iyo 255.5 laakiin ogaada kan yaa soo saaray automatically calculator soo saaray shift cos taabatay wana taabatay automatically 0 soo baxday ileen waa qaadan kartaa lagu yiri way la egtahay 360 kan say ku qaadani waa broobeen waxaan sameeynay cos 360 aan gelin 1 kan ma noo soo saaraysan daan ha way soo saartay waa qaadanina idin jawaabtaas inta jawaabtan waxa soo saaray calculator soo saaray oo waxa taabatay cos inta shift inta taabatay cos taabatay bil furtay -1/4 inta dhahday aaxirtay jawaabtan uu ku soo bixi jawaabtan markuu ku soo bixi si jawaab kale ay kugu soo baxdo numberkan inta yaalo oo 360 ka ah oo ranjigaaga ah meesha ugu dambayso ku egtahay ah ayaa soo qaadaysa tiradana ka goynaysa tiradana soo baxday ayadan waa hubinaysa inay soo saarayso -1/4 ama 0.25 oo minus ah hadii soo saarto automatically jawaabtaas waa qaadanaysa example 1 halkaas aan kaga bixinaa example 3 wuxuu leeyahay solve the equation cos 2x equal sin x for values of x in the interval x waxay ka weyn tahay minus pi waxay ka yar tahay pi jawaabaha laga rabo waa kuwan marka waxaana laga rabaa minus pi over 2 pi over 6 iyo 5 pi over 6 saddexdaas jawaabood ayaana laga rabaa inaan soo saarno bal aan xalino example kan asna example 3 ayaan hadda galeynaa sida meesha noogu qoran example 3 jawaabahaasana laga rabaa waxaan sameynaynaa marka waan xalinaynaa jawaabaha si aan soo saaro example 3 waxa la yiri cos 2x equal sin x intervalka waxaana la siiyay x waxay ka weyn tahay minus pi waxay ka yar tahay pi shaqadii aan galeynaa marka waxaana la yiri englishka meesha ku qornaay put all terms into one side tibixyaasho dhan hal meel isugu geey hal meel urur waa rarayna marka waxaan oo dhan rarayna dhinacaan isugu geenayna waxaan sameynaynaa cos 2x kan soo wareeji hadda balaas wata markaan soo wareejino minus sin x equal to 0 intaas markaan marayno cos 2x waan bedelaynaa halahan waan bedelaynaa cos 2x saddex qaacido lahaa mid waxay ahayd cos square grayson minus sin square grayson mid labaad waxay ahayd 2 cos x all square gray minus 1 mid saddexaad waxay ahayd 1 minus 2 sin x all square grayson marka mid aan qaadanayno waxay ku xiran tahay hadba midka meeshan yaalo halkan waxa yaalo sin ay yaalo saddexda qaacido mid sin ay ku jirto oo la falgalay midaas aan qaadanaynaa mid aan qaadanayno waxay noqonaysaa marka waxaan qaadanaynaa 1 minus 2 sin x all square grayson tan aan qaadanaynaa tan intaan ku beddelanaynaa kan aan qaadanaynaa minus sin x kan waa dejinaynaa equal to 0 inta markay saan tahay mala factorize gareyn karo sababtoo ah wuxuu u baahan tahay rearrange in lagu sameeyo in la qaabeeyo ay u baahan tahay waan qaabaynaynaa in order to factorize si aan furfurno waan qaabaynaynaa sidaan marka ma soconayso mala factorize gareyn karo oo si u qaabaynaynaa waxaan leenahay kana soo hormarsanaynaa qaybtaana soo hormarsanaynaa minus 2 sin x all square gray kana ku xijinaynaa minus sin x kan waa soo qaadayna plus 1 ileen ma wareejinayna calaamadda oo wato plus way pluskiisna ku dejinayna meeshan waxa yaala minus lama ogolo minus kan waa baabi'inayna oo maxaan leenahay minus ku dhufo 2 sin x all square gray inta minus ku dhufo plus sin x inta minus ku dhufo minus 1 equal to 0
inta markay maraysa hadda waa factorize garay karnaa oo si aan factorize garaynayna labadan ayaan waxaan ku dhufanaynaa halkaan aan ku dhufanaynaa laba iyo hal hadii isku dhufto jawaabteedu waa laba leebis laba tiro la isku dhuftay laba ku siinayso waxay noqonaysaa hal iyo labo markii labadaas tiro aan soo qaadanay waxaan fiirinaynaa qadkaan dhexe maxaa ku jiro middle term kaan fiirinaynaa inta waxa horgaliis uu yahay hal maadaama hal uu yahay labada markaan isku darnamay hal isiinaysa mise markaan kala gooyno ayay hal imaanaysaa mid waxaan siinaynaa marka calaamad inta taala fiirinaysaa calaamad inta taala haday minus tahay numberka weyn c haday plus tahay numberka weyn c had calaamad inta taala waa plus numberka weyn waxaan siinaynaa plus kan yarna waxaan siinaynaa minus kaliya waxaan raacinaynaa sin x aan raacinaynaa inta kan waxaan raacinaynaa sin x aan raacinaynaa waa soo guurinaynaa marka inta tan ii soo guuri 2 sin x oo la isku wargeliyo soo guuri minus 1 kaana soo guuri equal 0 dhaxdan waxaan u baneeyay waxay tahay waxaan gelin rabaa labadan tiro oo inta igu qoran plus 2 sin x waa kan aan soo qaatay marka kale waxaan leeyahay minus sin x 1 kan waa iska dhaafaya horgalo wuu leeyahay hadaba okay intaas markay tahay waxaan sameynayaa the trinomial ka saddex tabicili is changed waa la bedelay to a trinomial loo bedelay by splitting idoo la baabainayo the middle term qadka dhex waa baabeen and then it is factorized by grouping waa kooxeynayna marka waxaan sameynaynaa labadan waa isku group waxaan sameynaynaa common factor aan ka bixinaynaa 2 sin x common factor u ah inta 2 iyo 2 waa isku bixinayna sin x square gareysan waxa soo haraya sin x plus aan leenahay 2 sin x markii isku qaybi waa 1 minus bix calaamadan mar walba bixinay hadii plus tahay bix hadii minus tahay bix wax inta ku jiro common factor code waa 1 open bracket sin x dheh minus u qayb waa plus 1 equal to 0 mar walba waxa la rabaa labadan bracket ku jiro inay isku egyihiin la rabaa mar walba khasab waa inay isku egyihiin hadii kala duwanaadaan shaqada ka qaldan dib ugu noqo okay marka labada maadaama isku egyihiin midaan tuureynaa waxaan soo reebanaynaa sin x plus 1 equal 0 midkaan godan gelinayna oo 2 sin x minus 1 equal 0 aan leenahay idan fiiri qaybtan waxaan raaciyay equal 0 kan iyo kanna waxaan raaciyay equal to 0 shaqada aan wadna marka meeshaas aan ka wadaynaa marka qiimahan fiiri marka inta waxaa noo yaalo sin x plus 1 equal to 0 inta waxaa yaalo 2 sin x minus 1 equal to 0 kan waxaan leenahay sin x equal to waan wareejinaynaa minus 1 2 sin x kan asna waan wareejinaynaa plus 1 inta waxaan leenahay x equal sin inverse aan leenahay sin inverse markii la wareejinayo sin inverse minus 1 comma 2 waxaan leenahay intana inta 2 u qaybi inta 2 u qaybi sin x waxay kula mid tahay half wili soo deji x equal sin inverse minus 1 dheh x equal leh asna wareeji sin inverse half inta markaa marayna marka calculator ka soo qaadanaysiin shaqadan shaqa calculator waay intan shaqa calculator waay laba dhinac waay labada equation waa ka shaqeynaa the two equations oo halkan ku yaalo waa ka shaqeyn kan waa solve gareynaa kan waa solve labadaba waa xalinayna calculator ka soo qaad marka fura waxa taabanaysa ugu horeen shift ya taabanaysa sin ya taabanaysa kadib waxa taabanaysa minus 1 jawaabta ku soo baxday automatically waa qoraysaa calculator ka wuxuu soo saaray minus 90 ayuu soo saaray x equal minus 90 ayuu soo saaray adiga marka jawaabtan halkan ku qoran waa degree laga amro sababtoo intervalkaaga fiiri intervalkaaga si fiican u fiiri intervalkaaga wuxuu ku qoran yahay radian adiga marka radian ahaan ina u bedeshid ayaa ku fiican degree waa u qori kartaa laakiin waxa ka fiican ina u qorto radian ahaan see la yeelaa marka sidee loo qoraa radian ahaan waxa sameeynay marka waxa dhahaysaa 90 ka soo qaad calaamada minuska meel loo dhigo u soo noqonaynaa lagu dhuftaa leedahay by hoos dhigay 180 calaamada minuska waa ka soo tagnay hadhow u soo noqonaynaa kan iyo kan isku bixi 9 u qaybi waa 1 9 u qaybina waa 2 marka waxa soo baxay korka markii la isku dhufto 1 markii by lagu dhufto waxa soo baxay by ayaa soo baxay by hoostan waxa ka soo baxay 2 minus ay wadatay minuska raaci jawaabtaada marka maxay noqonaysaa marka waa kaas marka jawaabtaadu waxay noqonaysaa marka minus by over 2 jawaabtaada sidaas ay noqonaysaa qaybtan hak inta ima marka calculator ka soo qabsasna waxa sameynaysaa shift ya taabanaysaa
sin taabanaysaa bila furaysaa waxa leedahay 1 aad dhahe meesha ay ku qoran tahay a/b/c ayaa taabanaysaa 2 ayaa taabanaysaa kadib bisha waa xiraysaa equal aad dhahe waxa soo booday 30 degree ayaa soo booday x equal leedahay 30 degree adiga 30 degree waay ma laga rabo waxa isticmaalaysaa radian isticmaalaysaa oo seen yeelina waxa leedahay 30 lagu dhuftay by la hoos dhigay 180 tir eberkan tir 3 u qaybi waa hal 3 u qaybi waa 6 jawaab maxay noqonaysaa 1 ku dhufo by waxay noqotay by la hoos dhigay 6 30 marka waa iska tiraysaa 30 waa iska tiraysaa adi radian arabtaa marka jawaabtu waxay noqotay by over 6 okay inta marka aad joogtid qiimahan meeshan maadaama uu negative ku soo baxay wax kale ha ka raadinin faraha ka qaad inta marka aad joogtid 30 meeshan ku taalo automatically waxa sameynaysaa si jawaab kale u heshid 30 kan meeshan taalo waxa sameynaysaa meeshan maxaa yaalo baya taalo bayna meeqo ay 180 waxa sameynaysaa 30 kana 180 ka goynaysaa 180 ayaa waxa ka goynaysaa 30 waxa soo baxay 150 ma qoraysid intaadan qorin waa hubsanaysaa seen ku hubinayaa waxaan taabanayaa 150 ka ii soo baxay isla markii sin aan taabanayaa sin markaan taabto waxa la rabaa inuu soo baxo half kan waliba half ka soo baxay waa inuu yahay positive balas inuu ku soo baxo half oo balas meeshan ku yaalo 150 marka wuu keenayaa marka 150 waa jawaab anfacayso waan qaadanaynaa sababtoo interval keenina uu kamid yahay waxa la yiri wax 180 ka yar ayaa qaadan kartaa bas 180 wax ma qaadan kartid 180 way ka yar tahay 150 marka waxaan qaadanaynaa 150 marka aniga ma dhigaynay maadaama degree oo yahay radian oo bedelaynaa 150 leh lagu dhuftay by over 180 eberkan tir okay 15 soo hartay waxa uu sameeynaa 3 u qaybi waa 5 3 u qaybi waa 6 jawaabtu waxay noqotay 5 by over 6 waka saddexda jawaabood ee laga rabay waa kuwan waa mid kale saddexdaas jawaabood aan laga rabaa خلاص example kaas meeshaas aan kaga gudbeynaa example 4 waxaa la solve xali tan 2x plus tan x equal 0 4 x waxay ka weyn tahay ama leeg tahay 0 degree waxay ka yar tahay 2 by waxaa la wadaa 360 ma qaadan kartid way ka yar tahay jawaab 360 ma soo bixin kartid wax ka yar 360 ayaa laga rabaa sidoo kale waxaa laga rabaa 0 na waa qaadan kartaa iyo wax ka weyn na waa qaadan kartaa 0 hada waxa laga rabaa 0 iyo 360 jawaab u dhaxeey ina soo saarta laga rabaa bal aan xalina iyadana example 3 meesha soo noogu dhamaaday waxaan haddana galeynaa example 4 ayaan galeynaa example 4 wuxuu leeyahay tan 2x plus tan x equal to 0 interval kana la sii waxa la yiri x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay 0 degree waxay ka yar tahay 2 by macnaha waxay u dhigantaa 360 lama ogolo inaad qaadatid ilminis waxa lagu ogol yahay bas jawaabahaada soo bixi doona waxa laga rabaa 360 wax ka yar nafsu 300 naftirkeeda ma qaadan kartid sababtoo ah meeshan lama jiro equal lama jiro hadoo equal la jiri lahaa waan qaadan lahayn maadaama equalka uu ka maqan yahay ma qaadan kartid 360 mamnuuc ka tahay wax 360 ayaa laga rabaa jawaabaha ku soo baxay dhan waa inay ka yar yihiin 360 bal aan shaqeyna marka meeshan fiiri tan 2x waa bedeleynaa qaacide lahayd hal qaacide lahayd double angle waa bedeleynaa oo maxaan ku bedeleynaa waxaan leenahay 2 tan x divide by 1 minus tan x all square gareey intaan ku bedeshtay plus kan waa soo qaadaya plus dheh tan x equal to 0 inta markay marayso waa ina ogaatid meeshan inuu leeyahay hooseeyo oo hal ah LCM aan qaadayna LCM ku wuxuu noqonayaa intaana LCM ka noqonaysa LCM ka lama qoraayo waa la haynayaa waxaan leenahay 1 minus tan x oo square gareysay markii loo qaybiyo 1 minus tan x oo square gareysay maadaama ay jiin hala soo baxay halkii waxaan ku dhufanaynaa 2 tan x waxay noqonaysaa 2 tan x plus
1 minus tan x square gareysan markaan inta u qaybino waxay noqonaysaa 1 minus tan x square gareysan kadibna waxaan ku dhufanaynaa tirada kor taalo oo ah tan x soo qaad waxaa ku dhici doono oo ah 1 minus tan x oo square ah equal to 0 tan waa dejinaynaa 2 tan x waa dejinaynaa plus aan leenahay gudahan gelina waa ku dhufanaynaa tan x markii 1 lagu dhufto waxay noqonaysaa tan x minus tan x markii lagu dhufto tan x oo square gareysan waxay noqonaysaa tan x oo cubic ah equal to 0 inta marka marayno like terms are added wixii isku tabix ah ayaan isku dareynaa kan iyo kan ayaa isku tabix ah ilaan jibaaradooda hal ah kan jibaarkiisa hal ah waa isku dar kan horgaliis waa hal kan waa laba waa isku dareynaa waxay noqonaysaa 3 tan x minus tan x cubic equal to 0 inta markay marayso common factor aan ka bixinayna wax inta ku jiro oo banaanka loo bixin karo waxay noqonaysaa tan x aan bixinayna tan x markii loo qaybiyo 3 tan x taana isku baxaya waxa soo haraya bas 3 aan ka soo haraya minus tan x markii loo qaybiyo tan x cubic waxa soo harayo tan x oo la isku wargareeyay equal to 0 laba equation soo baxay markii kan waa equation kan waa equation mid walba waxa la ekaysiinayna 0 aan la ekaysiinayna oo maxaan leenahay tan x waxay la eg tahay 0 3 minus tan x oo la isku wargareeyay waxay la eg tahay 0 intaas marka marayno hadda solve gareynayna marka the two equations kan solve gareynayna labada equation oo meesha ku yaalo ayaan solve gareynayna oo waxaan leenahay tan x equal to 0 3 minus tan x square equal to 0 x aan leenahay marka waa wareejinayna tan inverse 0 meeshan waxaan leenahay marka 3 ayaan leenahay kan minus tan x square maadaama uu yahay xagga u ridaya oo wuxuu noqonayaa plus oo wuxuu noqonayaa tan x oo square gareysan kan sidiisa soo deji waxaan leenahay x equal tan inverse 0 kan waxaa leedahay radical aan gelinayna si square kan aan u qaadno inta waxaan gelinayna radical maadaama radical ah keento waxaad ka hormarisaa plus or minus waxaan leenahay tan x waxay kula mid tahay plus or minus radical 3 okay kan weli dej sidiis u dej x equal tan inverse oo x equal 0 sorry tan inverse 0 qaybtaan imaa marka ayadana wareej x tan inverse plus or minus radical 3 okay inta markay marayso calculator ka soo qabso marka shaqadan calculator ka iska leh waxa leedahay shift ya taabanaysa waxa taabanaysa tana taabanaysa meesha waxa ku qoran 00 taabanaysa maxaa soo baxay 0 soo baxday waa qoraysa ka hadal ma laha waa qoraysa x wuxuu kula mid tahay 0 degree ileen hore inta waxa lagu dhahay zeerada naftirkeeda waa qaada kartaa lagu yiri meesha ma jeedido way ka weyntahay ama naftirkeeda way la egtahay oo soo baxday waan qaadanaynaa sidoo kale jawaab kale aan ka raadinaynaa meeshaan jawaab kale aan ka raadinaynaa calculator ka soo qaado intaan dhinacaan u gudbin intaan jawaab kale ka raadinaynaa oo say u raadinaynaa waxaan sameynaynaa tan 180 ma isiinaysa eber aan leeyahay eberkan ma isiinaa eberkan ma aha eberkan ee kanaan ka hadlayo kan waa angle scale kanaan ka hadlayo waxaan leeyahay shift waxaan taabanaa tan kaligeedaan taabanaya 180 aan leeyahay eber way keenaysaa 180 waa qaadanaya ilaa intervalkayga ku jiraaba 180 waan qaadanaya waxaan qorayaa 180 waxaan u qorayaa by sababtoo ah degree ma rabna anaga radian rabna qaybtan waa ka dhamaanay inta imo calculator ka la bax waxa taabanaysaa shift ya taabanaysaa tana taabanaysaa bila furaysaa radical 3 ayaa gelinaysaa bish waa xiraysaa equal ah dhehaysaa waxa soo baxday 60 ayaa soo baxday x waxa leedahay waxa soo baxay 60 maadaama 60 oo soo baxay 60 anaga ma u baahni maadaama ay tahay degree ma rabna anaga radian aan ka dhiganaynaa oo 60 ka radiankiisa loo dhigaa by over 3 60 sidaan waay marka okay haddana waxaan sameynaynaa 60kii aan helnay
maadaama anaga ilaa 360 agteeda aan rabno inaan tagno 60ka aan helnay jawaabta 60ka aan helnay kaliya ma jeedaa 60ka ah heshay waxa ku dartaa 60 kale ku dar bis 120 ma keena hadii tan inta geliyo 120 ma isiina radical 3 waxa laga yaabaa calculator-ka noocan markaa wadatid inuu ku soo saaro 1.73 inuu ku soo saaro laga yaabaa calculator kala jiro oo markaa gelisid oo dhahdid tan 60 aad dhahdid tan 120 markaa gelisid automatically radical 3 oo minus oo ku soo saara marka calculator-ka haduu noo soo saaro sidaan ogaada sidaan haduu noo soo saaro minus 1.73 ama plus 1.73 haduu noo soo saaro labadaba waa qaadanayna sababtoo ah meesha marna waa plus marna waa minus marka waxaan sameynaynaa waa soo qaadanay calculator 60 ka soo baxay 60 ayaa waxa ku daraysaa 60 kale waxa soo baxay 120 automatically tan taabo tan dheh yes way soo baxday minus 1.73 ayaa soo baxay 120 marka waxa ka dhigaynaa anaga marka radian aan ka dhigaynaa radian u baahannahay say noqonaysaa marka radian kiis waxay noqonaysaa 2 by over 3 120 ka sidaan u qorantaa oo sidee ku imaade 120 ee lagu dhuftay by la hoos dhigay 180 eber kantir 6 u qayb waa 2 6 u qayb waa 3 markaas waxa la 2 lagu dhuftay by la hoos dhigay 3 sidaas ay ku soo baxday 2 by over 3 okay marka meesha joogtid hadda waxa joogtaa 120 calculator-ka soo qaad hadana mar kale 120 ka aad joogtay ku dar 60 waxay noqotay 180 dhinacana ka haystaa waatan way ku taalaa ka soco hadana 180 ka haysatay 60 ku dar adiga waxa la rabaa 360 agteed inaan tagno 60 ku dar 240 ay noqotay 180 markii 60 aan ku daro waxay noqotay 240 ay noqotay waaye 240 ma qori karaa waay mise waa broobeynayaa marka waxaan leeyahay tan aan taabanaya tan hore ka taabanaya yes way soo baxday iyadoo waxa soo baxday plus 1.73 ileen waa haysta aniga pluskiis waa u baahanahay 240 ayaan u baahanahay 240 ka waxaan ka dhigaynaa radian by over 180 tir u qaybi 6 waxay noqonaysaa 4 u qaybi 6 3 jawaabtu waxay noqonaysaa marka iyadana 4 by over 3 waa jawaab kale 240 haysataa wali 360 waa naga fogtahay 240 ka haysatay waxa ku daraysaa hadana 60 waxa soo baxay 300 ayaa soo baxday 300 marka waxaan ka dhigaynaa iyadana radian aan u bedeleynaa degree marabna anaga 300 waa degree radian aan u bedeleynaa radian markii loo bedelo waxay noqonaysaa 5 by over 3 300 aan joognaa hadii 300 aan ku daro 60 maxay noqonaysaa plus 60 360 ma loo ogolo anaga interval keen waan loo diiday 360 ma qaadi kartaa lagu yiri batata mamnuuc ay ka tahay bas waa joojinayna marka jawaabeen waxay noqdeen 0 degree by over 3 2 by over 3 4 by over 3 5 by over 3 example 4 meeshaas ugu bixinaa marka example 5 solve the algorithm sin x sin 2x plus cos x cos 2x equal radical 3 over 2 example 4 meeshaas aan ku soo gabagabeynay haddana bal aan u galno example 5 example 5 sida halkaan noogu qoran waxa la yiri sin x sin 2x plus cos x cos 2x equal radical 3 over 2 sidaas aan loo qoray okay waxa laga yaabaa su'aashan inaad ku wareertida laga yaabaa si aadan ugu wareerin markay saan u qorantahay waxa laga yaabaa ardayga inuu san fahansaneen waxaan wax ay yihiin si aad ku fahantida u qorayaa oo hadhowna aad ku dareentid oo waxaan leeyahay maadaama sin x sin 2x plus cos x cos 2x ay saan u qorantahay kuwaana soo hormarina oo waxaan leeyahay cos x cos 2x plus sin x sin 2x equal to radical 3 over 2 halkan fiiriye marka laba cos dhaxdooda balaas ku jirta laba sin waxaan u maleynaa compound angles marka mareeyay hadda xasuusataan
cos A minus B muxuu ahaa cos A minus B markii la rabo in expanded lagu sameeyo wuxuu ahaa cos A cos B plus sin A sin B adi marka A iyo B maanta waa lagu bedelay oo booskooda waxa galay A booskiis waxa galay x a galay B booskeeda waxa gashay 2x ayaa gashay waan soo gaabinaynaa marka maadaama expand ee tahay hadda sida ay u qoran tahay waa soo gaabinaynaa asalkiisa xagow ka imaaday wuxuu ka imaaday cos x minus 2x halkan fiir marka waxaan leenahay cos dheh x minus 2x sababtoo kan wuxuu noogu dhigmaa a oo noogu dhigmaa kan wuxuu noogu dhigmaa b oo noogu dhigmaa xarfaha meesha ku jiraan saas oo kale waa marka waa soo gaabinaynaa equal aan leenahay marka radical 3/2 inta marka marayna maadaama labadan like terms uu yahay kan horgaliis oo hal yahay kan laba uu yahay waan kala goynaynaa oo waxaan leenahay cos minus x soo hara equal radical 3/2 inta marka marayna mid waa ina ogaataan coska hadii minus meesha uu yaalo uu ka adag yahay oo balaas oo ka dhigaya hadii balaas uu yahay balaaskiisu ahaanaya mar walba coska minus ku cunaa wuu la kacaa marka waxaan sameynaynaa minus kan wuu la kacaya oo wuxuu noqonayaa cos x bas equal radical 3/2 okay marka waxaan leenahay x equal aan leenahay cos inverse waa wareejinaynaa cos inverse radical 3/2 inta marka marayno calculator ka soo baxso waxaa sameynaysaa shift aad taabanaysaa cos aad taabanaysaa kadib bila furaysaa radical 3 ayaa taabanaysaa radical 3 kadib waxa taabanaysaa loo qeybiyay ayaa taabanaysaa labo calaamada loo qeybiyay ayaa taabanaysaa labo waa xiraysaa jawaabta ku soo baxday ayaa qoranaysaa marka waxa soo baxay 30 ayaa soo baxday 30 annaga 30 ma qoreyno 30 hadaan qorno waxay noqonaysaa degree ahaan ay noqonaysaa degree ahaan marabna annaga waxaan rabnaa radian ahaan inaan qorno 30 ka markuu radian u bedeleynaa hadayna waa idin sheegay qaabkii loo shaqeey lahaa waxaan leenahay pi over 6 radian saani ku noqotay inta markaa maraysa marka jawaabta halka ma ku sameeysid waxa jiro exampleski kale wuu ka duwan yahay kan oo wuxuu ugu duwan yahay kan laguma siinin interval laguma siinin oo laguma dhiin halkaas ay kaaga bilaabanay halkaas ay kaaga egtaan laguma dhiin wax interval ah ma yaala meeshan maadaama interval uu yaalin jawaabtaana ay ku soo baxday maxaa sameynay marka waxa sameynaysaa automatically balasa leedahay 2 by k aku darsanaysaa adiga qasab ku tahay inaad ku darsatid maadaama interval aan lagu siinin adiga waxa ku qasban tahay inaad ku dartid 2 by k k-dan waxay u taagan tahay k waxay u taagan tahay ani intiga abyoona kasta u taagan tahay you don't know waxay tahay 10 miya 5 miya 6 miya 7 miya 8 miya 9 miya 100 miya minus 10 ma garanaysa ani intiga abyoona u taagan tahay marka 2 by waa naqaanaa hal wareeg oo dhameystiran waa oo ah 360 hal wareeg oo dhameystiran one complete cycle loo yaqaanaa hal wareeg oo dhameystiran waa 360 keeda markuu ku dhufsan tahay tira ku dhufsan tiradaas ma taqaan marka jawaabta ku soo baxday waxa sameynaysaa ayaa waxa ku daraysaa 2 by k intaas marka maraysa marka calculator ka soo qaadanaysaa inta maxaa ku yaal ilaan jawaab kala rabtaa inaad soo saartid oo raadisid inta waxa ku yaal 30 automatically marka tan markay interval oo san lahayn hal tiro ah wax ka jiray 360 aan leedahay 360 ayaa waxa ka goynaysaa 30 kan meeshan ku yaalo 30 ka goynay maxaa soo baxay 330 soo baxday 330 ma qaadanaynaa mise waa ka tagaynaa waa jeegreynayna oo say u jeegreynayna waxaan leenahay isla markii iyadoo 330 ay ku taalo calculator-ka hore cos ka taabo adoo wax kala aadin cos taabo ma soo baxay xisaabtan calculator-kan wuxuu soo saarayaa 0.866 oo soo saaraya ogaada wuu jijibinayaa 0.866 iyo kan waa isku macno waa waxay la mid tahay radical 3/2 la macno tahay labadan waa isku mid calculator-ka kan ka duwanaa jiro oo hadaa geliso
kuu soo saaraya automatical radical 3 over 2 oo plus ah oo positive ah kuu soo saaraya helay marka waan qaadanaynaa saasay ka dhigan tahay 330ka waan qaadanaynaa oo maxaan dhahaynaa 330ka waxaan u bedelaynaa degree ahaan waxaan ka dhigaynaa radian degree maadaama ay tahay radian aan ka dhigaynaa oo maxay noqonaysaa 11 by over 6 laakiin maxaan ku daraynaa plus 2 by k jawaab kasto aad soo heshid waa ku daray jawaab kasto aad soo heshid waxa ku daraysaa 2 by k bas خلاص halkaas ay ku dhimatay labadan jawaaboodana laga rabay meeshaas ay ku dhimatay example 5 example 6 kan hore u soo qaadanay isaga waan ka gudbaynaa hadaa xasuusataan hore u soo qaadanay dib aan idin celinaa fiiriye example 6 kan cos 2x equal sin x example kan wuxuu noogu jiray waa kana example 3 oo noogu jiray buug oo nagu soo celiyay mar kale uma baahni marka anaga example 3 uma baahni waxaan u gudbaynaa example ku xigo 6 waa ka gudbaynaa oo waxaan u gudbaynaa example 7 ayaan u gudbaynaa solve the equation lagu yiri sin 2x equal sin x x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay minus pi waxay ka yar tahay pi marka waan ka shaqeynaynaa jawaabaha si ay noogu soo baxaan example 5 ayaan sidaas ku soo gabagabeynay waxaan galeynaa example 6 example 6 waxaan rabaa inaan ka boodo sababta ugu boodayo waxay tahay example 6 iyo example 3 waa isku mid buug wuu soo celiyay bas isla kii ayuu dib kugu soo celiyay marka example 6 hada u baahan tahay example 3 ga aan ka soo shaqeeyay dib ugu noqo jawaabihii ku qornay fiiri sida ugu shaqeeyay fiiri isku jawaabaan soo baxayso isku process aan raaca saas marka waxaan u gudbaynaa example 6 waan ka gudbaynaa oo waxaan galeynaa example 7 ayaan galeynaa example 7 wuxuu leeyahay sin 2x waxay kula mid tahay equal sin x interval keenan waana la siiyay oo waxaan lahayd x waxay ka weyn tahay ama la eg tahay minus pi waxay ka yar tahay pi buuga meeshan wuxuu ka dhigayaa pi kaligeed uu ka dhigayaa iska sax minus pi laga rabaa buuga pi kaligeed uu soo qaadana way qaldan tahay sababtoo ah suuragal ma aha inaad dhahdid x waxay ka weyn tahay 180 ama la eg tahay 180 haddana inaad dhahdid waxay ka yar tahay 180 sax ma aha marka iska sax meeshan minus pi laga rabaa buuga laakiin pi uu qoraya pi-ga qalad waaye minus pi ka dhig inta pi laga rabaa it means waxay ka dhigan tahay 180 dhan ma qaadanayna annaga wax 180 ka yar bis aan qaadanayna aan shaqeyna marka shaqada aan qabana marka كل جودان سو قلنا put all terms into one side sin 2x كان سو وريج minus sin x equal to 0 كان sin 2x waa double waa furfureyna waa bedeleyna hal qaacid uu leeyahay double angle ka hal qaacid bas uu leeyahay oo maxay ahayd qaacidiisa 2 sin x cos x kana daji minus sin x beh equal to 0 common factor aan ka bixinayna labadan dhinac common factor waa sin x inta u qaybinayna waxa soo haray kana baxaayo sin x tan isla baxay waxa haray 2 cos x minus sin x hada u qaybiso 1y equal to 0 mid walba marka equation labada equation 0 la ekaysiinayna sin x waxa la egtaa 0 2 cos x minus 1 waxa la egtaa 0 x wuxuu la egyahay sin inverse 0 intan waxaan leenahay 2 cos x waa wareejinayna 1 kana wareejinayna waa 1 socotan daji marka sin inverse 0 comma de inta hadana 2 u qaybi intana 2 u qaybi 2 si u baxdo inta waxa soo haray cos x equal half see what hadana x equal leh sin inverse 0 comma x equal leedahay cos kana wareejinaysa waxa leedahay cos inverse half inta marka marayna marka shaqo calculator waa marka halka marka marayna calculator kan imaanayna marka calculator ka soo qabsa marka horta aan soo guurino calculator ka x waxay kula mid tahay sin inverse 0 comma x waxay kula mid tahay cos inverse half calculator soo qabsa marka shift taabo sin taabo 0 taabo
equal 0 waa qaadanaynaa x equal waxaa leedahay 0 degree kow jawaabta kow ee soo baxday waayo meeshaan waxaa lagu yiri fiiri meeshaan maxaa ku yaalo la eg soo kuma taalo mar haddii la eg ay ku taalo tan waa la qaadan karaa way saasay ka dhigan tahay waana baroobaynaynaa marka oo maxaa samaynaysaa calculatorka soo qaadanaysaa sine taabanaysaa bila furaysaa qiimahan ogow inuu yahay baydan 180 inay tahay ogow laakiin 180 oo minus ah minus 180 taabanay waa xiriir bisha equal dhahe zeerada ma soo saartay ha way soo saartay waa qaadanaynaa marka oo inta waxaan soo gelinaynaa minus pi qaybtan waa ka dhamaanay inta imaanayna marka halkaan aan jawaab ka raadinaynaa hadana qaybtan ayaan jawaab ka raadinaynaa calculatorka furo shift dheh cos dheh bil fur hal dheh a b/c meesha ku taala taabo 2 taabo xir calculatorka equal dheh 60 ayaa soo baxay inta waxa soo baxay 60 as radian aan qoraynaa pi over 3 60 ka saas waa marka maadaama 60 oo ka soo baxay meeshan pi over 3 aan qornay jawaab kale aan raadinaynaa marka ayadoo minus 60 oo minus ahna waa qaadan karnaa oo waxaan leenahay minus pi over 3 jawaab kale waa sababtoo ah hadaa tan qaadatid oo inta aad dhahdid calculatorka soo qaadatid halfka ma keena baroobe oo waxa leedahay shift waxa taabanaysaa cos taabanaysaa bila furaysaa minus 60 ayaa leedahay equal dhehaysa half oo plus oo ku soo saara halfkan oo plus oo ku soo saara minus 60 kaasna waan qaadanaynaa sababta minus 60 ka loo qaatay maxay tahay inta fiiri jawaabaha laga rabo fiiri waxa lagu yiri wax ka weyn 180 laga rabo waa ina ogaataan horta 180 oo minus ah iyo minus 60 yaa weyn ina ogaatada laga rabo tana weyn minus 60 kana weyn minus 180 kana yar laakiin markii la dhaho 180 oo plus ah 60 oo plus ah yaa weyn markii la dhaho 180 kana weyn waa la ogyahay 60 kana yar laakiin mar haddii negative noqoto tana weyn tana yar marka wax ka weyn 180 qaado waa qaadan kartaan la yiri yes way ka weyn tahay oo negative ah waan qaadanayna marka ayadana jawaabahana laga rabo waa saddexdan jawaab afartan jawaabood 0 minus pi over 3 minus pi over 3 example 7 halkaas aan ku soo gabagabeynayna example ugu dambeeyo example 8 ayaan galeynaa marka 2 cos half plus 1 equal 0 midkaan example kan waxay isleeyihiin example hore aan soo qaadanay oo ah interval malaha asan interval hadoo lahayn horeen waa idinku sheegay waxa lagu daray waxay tahay jawaabta ku soo baxday 2 by k ama 2 by r midkaan isku dar jawaabtaas laga rabaa marka bal aan xalino marka iyada example 7 sidaas aan ku soo gabagabeynay haatan waxaan u gudbeynaa example 8 ayaan u gudbeynaa waa example ugu dambeeyay ayaan qaadan doonaa inta waxa ku qoran 2 cos half n plus 1 equal to 0 ogow interval malaha mar hadduu interval lahayn adaayadna waa kala hadlay waxaan ku dhahay hadduu interval lahayn jawaabta ku soo baxday ee ugu dambayso waxa ku dareysaa 2 by k okay aan shaqeyna marka waxaan sameynayaa 2 cos half aan leeyahay equal waa wareejinayaa kan minus 1 labada meesha ku jirtaan ka bixinayaa waan u qaybinayaa inta laba aan u qaybinayaa intan laba aan u qaybinayaa oo waxaan leeyahay cos waxa soo baxay half equal minus 1 over 2 waan sii wadayaa x over 2 aan leeyahay kan waa wareejinayaa cos inverse minus half ayaan leeyahay isla marka calculator ka qabso calculator ka soo qabso marka maxaa sameynay marka shift ya taabanaysa cos taabanaysa bila furaysa minus taabanaysa hala taabanaysa ab/c meesha ku taala taabanaysa 2 taabanaysa waxa xiraysa equal 120 soo baxday 120 x over 2 equal 120 degree maxaa sameynay marka labada meeshan taalo ayaa waxa ku dhufanaysa tirada inta taalo x wuxuu ku lumid yahay marka 240 degree okay jawaabtu way soo baxday waatana marka
labada boqol iyo afartan degree looma baahna adiga degree ahaan lagaagama baahna maxaa lagaa rabaa as radian inaad ka dhigtid as radian si u noqonaysaa waxay noqonaysaa marka waxaa samaynaysaa 240 dheh lagu dhufto by over 180 ebertir 6 u qaybi waa 4 6 u qaybi waa 3 jawaabta ugu dambaysa maxay noqonaysaa marka 4 by over 3 4 by over 3 laakiin maxaa ku daray plus hadaad ma ku sheegay maadaama interval ay wadanin waxaa ku daraysaa adiga 2 by k laakiin buwaagta qaarkood waxa arki doontiin meeshaan inay dhahaan 2 by n waa isku mid hadii 2 by n la dhaho iyo 2 by k hadii la dhaho waa isku mid adiga 2 by n dheh hadaa 2 by k dheh waxa aad samee inta markaa joogto inta maxaa ku yaala marka 240 ku taalo 240 ka maxaa sameeyay mar hadii interval oo yaal 360 ka goynay 360 ayaa waxaan ka goynaynaa 240 maxaa soo baxay 120 waan anfacaysa 120 waan soo qaadaynaa 120 oo maxaan sameynaynaa x equal leenahay waa qiimo kale oo soo baxay 120 waxaan u bedeleynaa anaga ma rabno degree ma rabno radian rabnaa 120 ka soo qaad ku dhufo by over 180 tir 6 u qaybi waa 2 6 u qaybi waa 3 jawaabtu maxay noqonaysaa 2 by over 3 plus 2 by k jawaab kasto ku soo baxda 2 by k labadan jawaabood waa ku dhaafi kartaa daarabtidna waa sii wadi kartaa more than 2 answers waa ka sii dhigi kartaa oo maxaa sameynaysaa 240 ee meesha ku taal laba ku dhufanaysaa 480 noqonaysaa 480 na way keenaysaa hadii aad gelisid 480 oo course hadaa gelisid minus half kan wuu ku imaanayaa hadaa rabtid xataa 480 ka laba ku sii dhufanaysaa daarabtid 900 iyo jarjara imaanayso daarabtid waa qori kartaa marka iska soo gaabi labadan jawaabood ku soo gaabi عشركينين ماشي أيوة كل ما هذا قيبتان trigonometric equation ماشي أصلا كسوق بجبينينا إن شاء الله وعشر كدنبه أو area يكهر لاي أيان وجود بدونها هدو إلى هذا قيب جيومتري أيان قل دونها سوماليا واحد يشيء سكسكني مالس كدافو some teach وعلمي للصوت دوب يا ده يعيد شيء والو صوشولي